بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وحن سلامنا دمان ومدى الصومالي ملك استيجوكتو وحن كو سلامنا صلاة إسلامك صلاة عزة شرفت له. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha 10aad 2019 oo maalin khamiis ah waxaan rabnaa inaan maanta ka warano turxaan bixino filanqeyno analyzing aan ku sameeyno mawduuc ama report soo gudbiyay hantidhowraha guud ee qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya khudbadaas ama warbixintaas oo ku saabsaneyd statementii ama report of financial statementiga sanad xisaabeedka ama kala xisaabeedka sanadka 2018 hantidhowraha waxaan rabnaa insha Allah inaanu ka warbixino turxaan bixino filanqeyno waxa uu soo saaray iyo barnaamijka uu dhammaan bulshada Soomaaliyeed wadaagay runtii hadaan nahay dadka waxa way aad ka urdaneeya daraasadeeya wax ka qora waxna waxa way ka daraasadeeya anagoo ku hadlaya magaca معهد علوم الدراسات السياسة من Institute for Political Science and Knowledge سلطان عبد الله محمود وحرمنا إن شاء الله بل إننا ترحم بحنه أي نكور رنه نظام كيو وربحين ماليات كونا لو ذاقي هنت دورها بود قرنك وحن آدي ومهد علينا كو أمانينا كو بوادينا هنت دورها بود قرنك سلو وجتي واجبات كيسهر وحول فيدرال آدي ما نبقى عسناهي وأنا كو كالصواناهي سيدو كلا waxaan mahad ballaaran u jeedinaya oo aan ku amaanaya oo iyagana waxa leenahay bogaadinayna xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hormuudka ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Xasan Cali Khayre inay ogolaadeen waxa weeye sidii loola xisaabtami lahaa si accountability responsibility u imaan lahaa oo ay ogolaadeen si daafran in loola xisaabtamo waxa runtii u arkaa waxa weeye bogaadin waxa weeye dawladda waxa weeye federaalka Soomaaliya waxa ay mudan tahay in la garab istaago lagu taageero runtii waxa weeye wax qabadka iyo nidaamka waxa weeye maaliyadeed iyo sida wax loo wado runtii warbixinta waxa ku cad uu ka diyaariyay hantidhowraha guud ee qaranka waxa weeye lacago ay bixiyeen waxa weeye dadka daneeya arrimaha Soomaaliya sida waxa weeyaan dadka waxa weeyaan deeq bixiyaasha bixiya sida midowga Yurub boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa weeye UNDP-ga iyo dhammaan idaha daneeya waxa jira marka lacag badan oo qasnada dawladda ku soo dhacay laakiin si kala loo maamulay waxa jiray waxyaalo badan oo loogu talagalay sida Sacuudiga oo 20 milyan ahayd boqortooyada Sacuudiga oo 20 milyan ahayd sidoo kale waxa jiray lacagtii midowga Yurub ee bixiyeen 17 milyan ahayd sidoo kale waxa jira bangiga adduunka lacag uu bixiyay marka iswaafajinta nidaamka xisaabeedka ee maaliyadda iyo warbixinta uu diyaariyay hantidhowraha guud ee qaranka waa tallaabo wanaagsan waa tallaabo bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda u horkacaysa si hufan la xisaabtanka dawladda waxaanu sidoo kale uga fadhinaa dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya sidaas oo kale inay u xisaabtamaan ka shaqeeyaan soo gudbiyaan xisaabta guud ee qaranka iyo xisaabta dawlad goboleedyada iyo maaliyadda meelahay wax ku baxeen sida ay wax u baxeen meelaha ay wax ka soo galeen sida dawladda federaalka Soomaaliya institutionskeeda loola xisaabtamayo ayaan u baahanahay inaynu la xisaabtano dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in Puntland laga hirgeliyo nidaamka federaalka iyo hantidhowraha guud ee qaranka way uu meesha u jooga hantidhowraha qaranka ama hantidhowraha Puntland haduusan warbixin uusan la wadaagi karin shacabka Puntland waxaanu faraynaa inay gutaan waajibaadkooda qaran runtii dawladda waxaanu ka aragnaa in accountability uu jiro la isla xisaabtamayo miiska la isugu imaanayo waana arrin mudan bogaadin in lagu bogaadiyo sidoo kale waxaanu rabnaa inaynu ka warbixino dhanka waxa weeyaan maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo deyn cafinta waxa moodaa 14 stage inaynu qayb ka mid aynu ka soo gudubnay waana wax dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda oo hormuudka ka yahay wasiirka maaliyadda ee Bayle aad iyo aad runtii ugu mahad celinayna waxaan u baahanahay dawlad aan la xisaabtami karno waxaan u baahanahay mas'uuliyiin aan la xisaabtami karno waxaan u baahanahay dad daneynaya ogool si hufan u og inay daneeyaan ka jawaabaan waxyaalaha eedeymaha loo soo jeediyo
waxaan runtii 18 milyan 189,406 baa waxa way qasnada dawladda ka maqan waxa la rabaa si hufan inay dawladdu u hagar baxdo warbixin ka diyaariso sida ay wax u baxaan waxyaalaha statementiga bangiga adduunka khasnada dawladda dalbixiyaasha iyo si hufan inay u xisaabtamaan baan u baahanahay haddii aan isla xisaabtamin dawladnimo imaamayso si hufan baan u baahanahay inaynu la xisaabtano dawladda waxa way kuna amaano waxa ay qabteen waxa ay ka gaabiyeen aan ku dhaleelno waxa way waa nidaamka iyo dawladnimada iyo waxa way qor isku dhiibka aad iyo aad baan u taageersanahay waxaanu aragnaa dhaqaalaha dalka inuu kobcayo waxaanu makhraati ka nahay in uu isbedel yimid waxaanu marag ka nahay in waxa weeyaan loo bogay nidaamka ay wax ku wadaan iyo dhaqaaluhu siduu u kobcayo dakhliga iyo sanadada hore soo ahaa miisaaniyada sanadka iyo sanadada hore say ahaayeen waxa way wax inta laga qarsan karo ma aha haddana iyadoo sidaa tahay dhaliilo dawladdu ay leedahay waxaanu jecelnahay insha Allah sidaas oo kale in dawladuhu ay u xisaabtamaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay soo gudbiyaan warbixino ku saabsan in ay dalkan ku xisaabtamaan iyo dhaqaalihii meelahay mareen inaan u baahannahay waxa weeyaan 4 shayba waxa way dawladda maanta waan ku amaaneynaa waxa weeyaan la dagaalanka dhanka arrimaha musuqmaasuqa